Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan Jimca Cream. Kusoo dhawaada warkii dunida iyo warbaahinta libdho qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Greek oo sheegay inuu Mareykanka ka iibsanayo diyaaradaha casriga ee loo yaqaan F-35 kuwaasi oo iibkooda xukuumadda Washington u diiday dalka Turkiga. 11 ka mid ah militariga wadanka Turkiga oo ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha wadankaasi. Ku dhawaad 30 qof in ka badan oo la sheegay inay ku dhinteen xeebaha dalka Djibouti. Iyo sidoo kale waxaad ku daawan doontaan Mareykanka oo ku dhawaaqay qorshe uu kaga soo horjeedo in baaritaano lagu sameeyo dambiyo dagaal oo maamulka Israa'iil uu ka geystay dhulka reer Falastiin ee ay haystaan. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba iyagii oo faahfaahsan. waatay dawladyaal ku bilownay dawladda Greek ayaa sheegtay in Mareykanku uu dalkiisa u la diyaar yahay iibinta diyaaradaha jeelka cusub ee casriga loo yaqaan F-35 hadiiba ay timaado in loo baahdo iibsashada qaybo kale oo kamid ah qalabka militariga ay ka yihiin diyaaradahaasi. Geoffrey Bayat oo ah safiirka xukuumadda Athens oo fadhiya magaalada Washington ee wadanka Mareykanka ayaa sidaas sheegay Khamiistii. Safiirku wuxuu sheegay in casriyeynta socota ee 84 Greek F-16 ay tahay mid aad u muhiim ah maadaama ay haatan ciidamada cirka dalkaasi isku diyaarinayaan helitaanka qaybo kale oo kamid ah F-35 diyaaradaha loo yaqaano. Waxa uu soo hadal qaaday Ambassador Geoffrey Bayat horumarinta ciidamada badda ee dalkiisa oo tilmaamay in xukuumadda Washington ay ka qayb qaadanayso casriyeynta qaar kamid ah maraakiibta dagaalka dalkaasi. Arrintaasi uu shaaciyay inay kor u qaadayso xiriirka saaxiibtinimo ee xukuumadaha Washington iyo Athens. safiirka ayaa sidoo kale muujiyay taageerada dalkiisa iyo wada hadalada sahaminta ee u dhaxaysa xulafada NATO ee Greek iyo Turkiga isagoo sheegay in Mareykanku uu doonayo in wada hadaladu ay ku sii socdaan qorshihii hore ee la dejiyay isagoo intaasi ku daray in xaalku haatan taagan yahay maxkamadda Ankara isagoo ujeedada hadalkaasi ee maxkamadda Ankara uga socday safiirka Greek wada hadalada labadaasi dal u dhaxeeyay ee ku saabsanaa khilaafka biyaha badda madow ee loo yaqaano Aegean Sea. Tobanayo muhaajiriin Afrikaan ah ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen kadib markii tahriibayaal ay ku tureen badda Djibouti xilli ay ku sii jeedaan Yemen iyagoo oo rajeynayay inay gaaraan Saudi Arabia si ay shaqo uga helaan halkaasi. doontan oo sitay ku dhawaad 200 oo muhaajiriin ayaa ka shiraacatay xeebta Awlobi oo ka tirsan wadanka Djibouti labadii duhurnimo sida ay sheegtay Nayona Dege oo ah afayeenka hay'adda caalamiga ee socdaalka IOM. Sayyeeshee dadka ka badbaaday dhacdadan ayaa sheegay in saacad kadib markii ay doontu ka baxday meesha loo yaqaan Awlobi ay naaqudayaashii doontu ay sheegeen inay doontu culays ku ka batay ayna ku tureen badda 10 qof sida ay sheegtay afayeenka hay'adda IOM. waxay ku warantay in ilaa hadda la helay meydadka 5 qof oo kamid ah dadka laga tuuray doontaasi. dadka inta badan ku qarqama xeebaha wadanka Djibouti ayaa ka yimaada dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya iyagoo isku dayay inay ka baxsadaan saboolnimada ka jirta dalalkooda isla markaana shaqooyin ay ka raadsadaan dalalka Saudi Arabia ama Imaaraadka Carabta. qaarkood ayaa marka ay gaaraan Yemen ku xanima maadaama ay sanadii ugu dambeeyay ka socdeen dagaal qaraar kadib markii ay ku guuldareysteen inay u gudbaan xuduudka Sacuudiga waxaana inta badan qaarkood ku qarqamaan xeebaha wadanka Djibouti iyagoo isku dayay inay u gudbaan wadamada Sacuudiga iyo sidoo kale Yemen. ma markii ugu horeysay ee tahriibayaal ka baxay xeebaha wadanka Djibouti ay ku dhintaan badda wadankaasi. halkaad wali warkaasi ka daawanaysaan waa warbaahinta Libdo. dawladda Mareykanka ayaa qaadaysa talaabo adag oo ka dhana shacabka dhibaataysan ee reer Falastiin kuwaas oo ay xasuuqiyeen dabargoyn joogto ku hayaan maamulka Yahuudi ee lagu deegaaminay dhulka reer Falastiin. horaantii bishii aan ka soo gudbinay February ayaa maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga ee ICC waxa ay soo saartay go'aan sheegaya in dhulalka kala duwan ee laga haysto maamulka Falastiin ay hoos yimaadaan dhulka reer Falastiin. waxaana ku xigay Arbacadii toddobaadkana oo maxkamadda dambiyada caalamiga ee dunida ay shaacisay inay baaritaan xooggan ku sameyn doonto waxa ay ku tilmaantay dambiyo dagaal oo ka dhana bini'aadanimada oo ka dhacay qaybo kamid ah deegaanada Falastiiniyiinta. xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka ninka la yiraahdo Antony Blinken waxa uu shaaca ka qaaday walaaca ay xukuumadda Washington ka qabto baaritaanada ay ku dhawaaqday maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC. waxaanu sheegay in Mareykanku ay si weyn uga soo horjeedaan go'aankaasi isla markaana ay ka niyadjabsan yihiin. Mareykanku wuxuu si adag uga soo horjeedaa oo uu si qoto dheer uga niyadjabsan yahay go'aanka maxkamadda caalamiga ee dambiyada ICC ee ah in la furo baaritaanada dambiyada dagaal ee dhulka reer Falastiin ee la haysto ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda wadanka Mareykanka. xogayaha Antony Blinken ayaa intaasi ku daray in maamulka Israa'iil aanu qayb ka ahayn maxkamadda ICC ee dambiyada dagaalka taasina ay sababayso in aanay maxkamadaasi awood u yeelan baaritaanada ay haatan ku dhawaaqday. mowqifka maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ayaa waxa si adag
dhinaca kale u diiday maamulka Israa'iil waxaanu ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuddu Benjamin Netanyahu ku tilmaamay go'aankaasi maxkamadda nuxurka nacaybka dadka reer Israa'iil dhinaca kale go'aanka maxkamadda ICC waxa soo dhaweeyay maamulka Falastiin oo ugu yeedhay tallaabo in badan la sugayay oo u adeegi doonta reer Falastiin oo muddo badan raadinayay cadaaladda iyo la xisaabtanka kuwaasi oo tiro lama huraan oo ah nabadda shacabka Falastiin ay raadinayeen ee ay mudan yihiin dhinaca wadanka Turkiga haddii aan eegnana diyaarad nooca militariga oo leeyihiin ciidamada militariga dalka Turkiga ayaa ku burburtay gudaha wadankaasi waxaana ku dhintay 11 kamid ah ciidamada qalabka sida ee dalkaasi soo bartiisa Twitterka ku xaqiijiyay wasiirka difaaca wadanka Turkiga Hulusi Akar diyaaradan oo ahayd helicopter gaar ahaan nooca loo yaqaano Kaugar ayaa ka kicitay bariga gobolka Bengal waxaana ku sii jeeday degmada loo yaqaano Tatvan ee gobolka Betles dacweynaha wadankaasi Rajab Tayyip Erdogan oo ka hadlay dhacdada diyaaradan ay ku dhinteen 11 kamid ah militariga wadankaasi ayaa waxa uu tacsi u diray ehelada askartaasi ku dhintay shilka diyaaradeed madaxa ururka gaashaanbuurta NATO ee dalkani qaybta ka yahay ayaa dhankooda ka hadlay dhacdada shilka diyaaradeed waxayna soo saareen warmurtiye Turkiga ay kula qaybsanayaan murugada dhimashada 11 kamid ah ciidamada wadankaasi dhinaca kale wasaaradda difaaca wadanka Turkiga ayaa sheegtay in 11 kamid ah ciidamada wadankaasi oo ku jiray mid kamid ah saraakiisha ugu sareysa wadankaasi wali wasaaradda gaashaandhiggu war rasmi ah ma soo saarin waxa sababay burburka diyaaradan helicopterka ay lahaayeen ciidamada militarigu ee saayatay nolosha 11 kamid ah askarta oo mid kamid ahaa saraakiisha ugu sareysa dhanka militariga wadankaasi ugu dambeyn intaynaan ka bixin wadanka Turkiga wasaaradda difaaca dalka Turkiga ayaa sheegtay in hawlgalo kala duwan oo ay ka fuliyeen militarigu deegaanada xuduudda waqooyiga Syria iyo Turkiga ay dad rayid ka badbaadiyeen qaraxyo xoogan oo bambooyin ah kuwaasi oo kooxaha argagixisada ku soo rakibeen gaari nooca xamuulka ah walxa qarxa oo laga soo buuxiyay kaasi oo la soo dhigay deegaan kamid ah gobolka Alcantara oo 20 kilomitir u jira Minjab wasaaradda difaaca ayaa intaasi ku dartay in hawlgalkan oo ay sameeyeen Khamiistii iyagoo adeegsanaya laba kamid ah ayda u tababaran baarista qalabka qaraxa ee la hawlgala militarigu ay soo saareen goobta lagu qariyay qaraxa weyn ee la qorsheeyay baaritaanka ayaa lagu ogaaday in gaarigan ay ku jireen 25 ilaa 30 kilogram oo walxaha qarxa kuwaasi oo awood u leh dilitaanka 10 qof weerarkaasi ayay ugu dambeyntii ciidamada dalkaasi ku shaaciyeen inay ku guuleysteen inay fashiliyaan iyaga oo qaybaha ciidanka ee u tababaran walxaha qarxa ay sameeyeen nidaam digtoonaan ah oo lagu qarxiyay qalabkaasi halkaasi la dhigay isagoo wax khasaare ka dhalan lagu baabiyay goobtaasi wasaaradda difaaca ayaa sidoo kale soo saartay muuqaalka muujinaya ayda tababaran oo baadhaya walxaha qarxa ee lagu soo rakibay gaarigaasi tan iyo 2016 Turkigu waxa uu sameeyay 3 hawlgal oo lagu la dagaalamayo argagixisanimada gaar ahaan xadka waqooyiga Syria si looga hortago sameynta dalagyada argagixiso ee in gobolada xuduudka labada dal laga hirgeliyo nidaam nabadeed oo ay ku noolaadaan dadka rayidka ah ee labada dal deegaanada u dhaxeeya wadadaga waatay dawlad gudaamadaasi waxaan soo gabagabeynaa wartabintani maanta waa Jimcaha warbaahinta Libdo warkan warkayntan ku kulmi doono waana idinku dhaafaya nooli kulantay